wixii caalanka buluuga aaminsanba maaha ergaabo kaliya maaha Soomaaliland oo dhan meel kasta qof Soomaaliland joogo ama deegaan Soomaaliland cid ka ogolay ma jirto cid ogoleedna ma jirin marka horna marti bay ahaayeen haddana martidii way diideen waana laga saaray meeshii hantidoodii waxa weeye laascaanood gudaheeda aniga hanti baa iga taalay wasaarada iga yaalay dakhli baa iga yaalay anoo ka daba hadlay ma arka anoo ka sheekeynay ma arka adeero taa maqan ayaa tanna loo qaadanaya waxaan leeyahay ciidamada SSB iyo GT36 iyo ciidamada qaranku warta xaasiskiina ka haystaan meesha isku kala bixiya ilaahay baad garateeno nin walba ay guriga ka diga meesha maxaa la samaynayaa weeyaan arrinta cergaabo ka dhacday waxa weeyaan waa arrin soo daahday bay ahayd in mar hore laga safeeyaabay ahayd way soo daahday baan ku leeyahay waana arrin loo baahnaa waana arrin la filayey cadowga isbahaystay huwanahna xalkeedu waa sida xalka ugu dambeeya waa sida weey ayaan aaminsanahay dadkaas maadaama meesha hanti ku lahaayeen iyagoo calankooda sisteena mar labaad iman karaan dadkaas waxa weeyaan magaalada Ceergaabo marka hore anigu waxaan u arkaa inay tahay Qudus oo kale halka Qudus muslimiinta ay kaga taalo oo kale ay Soomaaliland kaga taala Ceergaabo ma noqon karto magaalo kala qaybsan ma noqon karto magaalo cid gaar ah leedahay waa magaalo midaysan oo Soomaaliland oo calanka tawxiidku ka babanayo waa inay noqotaa anigu sidaan aaminsanahay ama sida ay ila tahay badee waxaan u arkaa in nabad lagu doono lagu waayo haddii nabad lagu doono nabad lagu doono la soo dhaweeyo waa dad islaam ah waa dad walaalo oo wada dhashay waa dad isku ehela in la soo dhaweeyo laga raaco xagga nabadgelyada iyo nabadda laga raaco nabadda diidaan ma soo wada degdegin hadday nabadda diidaan waxay qasbaysaa oo noqonaysaa in Soomaaliland laga raro laga noqonayo Soomaaliland in laga safeeyo iyagu maadaama calanka Soomaaliland ay aaminsan calan buluugastaan guriyahooda iyo Ceergaabo deegaankooda ay ka tageen ma kulata inay ku soo noqon karaan iyagoo isla sidii hore calanka aaminsan waa lagu dabi waxa weeye waxyaalo badan oo laga guuraba jiro loo dul qaato wax badan goobtu way guulaysataa waana jabtaa goobtu marka wax badan bay ka guurtaa wax badan bay ka guurtaa wax badan bay soo dhawaysaa wax badan bay soo dhawaysaa wax badan bay ka guurtaa soo dhawaysaa ma garanaysaa ilaa aakhirka markay istaagto nabadgelyo la'aan hada ma garanaysaa nabadgelyo maadaama iminka iyagu aanay marnaba calanka Soomaaliland taageersanayn oo ilaa calan buluugan ku joogna Ceergaabo daanteedana calan buluug ku joogna ma kulata inay soo noqon karaan iyagoo calankii buluuga aaminsan maasanta tiyaadi aad ugu faraxsanahay marka calankii buluuga ay dawarka lahaa dil laga sifeeyay Ceergaabo tiyaadi ugu faraxsanahay Allah subhanahu wa ta'ala sifeeyay doona hadii la garto sagana kulata inay Ceergaabo ama guryahooda ku soo noqon karaan iyagoo wali calankooda aaminsan ma aaminsani ku soo noqon karaanba hawaati dalla kala calaamad la qaybsaday hantidodaas waa xalaal weeyaan ee waa sida wax xalaalkaas waa wax la dhaafi weeyaan aad maasan Ceergaabo lagu wada hadlayaa ayaan u qaadan lahayaa anigu kii tawxiidka lahaa baan ka taagayay oo cadoon soo wadayba anigu saasha waan la yaabana Ceergaabo calan buluugastaan waan la yaabana maadaama dadka habta daaro sheegta laga sifeeyay halkaasi kulata inay dib ugu soo noqon karaan hantidoodii deegaankay deganaayeen waxay ku soo noqon karaan haddii ay laga saxeexo inaanay waxaa soo dambe buluug dambe lagu arki karay oo weliba dhaar la mariyo lagu dhaariyo calanka Soomaaliland inay ku soo laaban karaan aad maasantahay dhaxaanu barnay nabad la barnay dee maanta hal dhalaaliyo oo hal ololiyo intay ku dhawaaqayaan Soomaaliland barna inaan gacanta laga dhigin oo aan xabadda laga deyn oo la gumaado la xasuuqayaan anigu ilaa yarkoodu kar Soomaaliland waxa lagu wadaya lagu wado xabadana ayaan laga deyn yaagoodina meelaha la furfuriyo awiyada la waso yasaasan leh guriyooda maxad kale ka yaacay guriyooda waxaan leeyahay dadka shacabka ee masaakiinta meel ay galaan aan haysan la siiyo ee Soomaaliland darka dhabta Allah hala siir leedahay diyaarinta waxaa gacdadu un bixiso wado waxa weeye fidmo la soo galay gobolka dadka fidmada la soo galayna waxa weeye qofkii fidmo sameeyaa isagu ma ku gubanaya kii nabadgelyo wadaana isagu ma ku faa'iidaya nagaa ka fidmada wadaa meel ku baxsan maayo dad kasta ma ahaado marka waxa la gardaradii ay ku simaadeen deegaanka Ceergaabo ayaa la digtay marka waxa weeye qofka Ceergaabo yahay waa gubaya ama dagaal ma gelaya isagu ma ku gubanaya
hadda waa laga sifeeyay laakiin ma kula tahay inay mar labaad ku soo laaban doonaan haddii laga heshiiyo nabadgelyo dhacdo waa ku soo laaban karaan laakiin colaad kuma iman karaan iyo xabad aad dad maasanta والله سيفي عمرال انتي عرقابان كل هايين انتي لاسعانات كل هايين تابشين يو تاجرينتين كل هايين محمدية هاو قاتان أنا قريبا من دورنا يا سيدح قريبا من قادنا يا وكي الله حافظ الكلام لأنه سوق واسع يا يلا حافظ براد الرجال كاسي كل يرون الناس الشيء ملكيتي والله يكون شيء قريبا إسماعيل حتى نور بس تزيع صحيح يا بريتوري يا قريبا دورنا يا way mukrata inuu daaran mar labaad ku soo noqon karo deegaankii Cerigaabi guriyahooda mar labaad haday ku soo noqdaan wallahi marka isaaqa Cerigaabi degan Muuse Ismaaciilka iyo Biidaha iyo Abdurrahmaanka wallahi naagooda ku qabsanayaan ay lagu soo noqon balay badii walaashin dhashay mara ha iyo lagu soo laaban sidii taaro waxaan leeyahay taarada een dagaal bay nagu soo qaadeen oo iska difaacin aad bas iska difaacin maanta duwaydo magaalada nagu haystaa waxaan ku leeyahay kadib taan ugu soo noqonin hadii dadka inaga doonto taarado hadii dagaal kale iyo gumaad kale doonay hadii kan shaqo isku saacada soo raacawdi dhameynaya ma santeela horta haybtu dadka waa la wada deganaa oo dad wada degan bay laakiin haday ideen noqdeen waxa weeye dad qalasiyaayo waxa weeye dadkii laynayo waxa weeye Soomaaliland qaatuma doonaya waa la laynayo waa laga saaraya marka waxaan leeyahay hal iska celiyo oo waxa weeye 25 August waxa weeye la saacado laga soo baxay waxa weeye sidii la lahaa daayo waa to weena la joogi jiray waxa weeye dacagtayna mariyeen islaayintiina waxay doonayeen in waxa weeye sidii loo sabaariyay Cerigaaban ku dareen marka imika in la garaaco cagta la saaro la iska celiyo waxa weeye aad iyo aad waxa weeye cagta loo saarano baan ku taliyay kulantayna mar labaad ku soo laaban doonaan guriga ka qaxeen may ilaa Soomaaliland ku dhawaaqaan oo yaadan Soomaaliland daladaanu noo waxa weeye halka dhigaan dib ugu soo noqon maayaan sidaas cagta loo saaray soo laaban maayaan inta qaatumaanu nahay soo laabanay waa la garaacaya aniguna imika tagaya imika daasa dhaqaaqaya anigu may Soomaaliland difaacaya caalamka Soomaaliland tawxiid kale walaal iga xishood inaan baatay wariyahay marka waxa ku sheegaya waa weeye dalkan difaacaya الله علنك قولده سيدته وممنوع أنا يقول منك دفاع عن قلية بقى وصدا هذا علنك استوى ولا اسك دفاع ها وين اللي اسك دفاع قصدين كل جالس في Cerigaabi intii ugu soo laaban karaan wixii dib ugu soo noqda xal marin doona talaabo sharci ah aan ka soo noqon doono kuwa xaleena marka hore wadad baraaqle waayo Cerigaabanada magaalada Soomaaliland kamid ah kowde dibna horaa loo buufi inta hadana soofta waa laga dhiganayaa wada isku masaxna intoodii ugu soo laaban karaan ma maranaysa hantoodiya xagee ugu soo laabtaa waa lagu aroosanaya labadii ilaahay isku alfada ayaa arooska degayo arooska looga dhisay waa sida wallahi horta maxay leeyihiin raga marka dhumaatay laga sifeeyo horta wadanka aad bay u fiican tahay maga nimanka nimanka wadanka ugu haysta Cerigaaban ugu haysta Cerigaaban isirno ma leh ma dhigi jirin Cerigaaban xeeday magaalada Isaaq ma garat baa socodna iga halka horaba marka waxaan leeyahay aan ugu soo noqonina xeeday la socodna ugu hadlay badan xeeday واحد دقيقة ما هي نمرها. هو بحبونتها أنا أركتها. واحد أرجع بالسوالن. مركز السوالن يسمع لي يسكمل وشكرا. قصيقو علن كودي بلوغا ولي أمسني خاتمدودي. مقرطين Cerigaabi deegaanka deegaan salaam. لما هو تجناني تعلن بلوغا قحتان. لما هو تجناني. تجناني. way guriyooda maxaa oran lahayd تكريو هذا دون سوالن لا يمكن يخصون غادي كمان كمان عندنا. Soomaaliland aqbaran لما يلين aqbaran سوالن. ما سنتا. dadku marka wada wada shir Soomaaliland marka labaadna waxa weeye Cerigaabi maligu deganaadeed waxa weeye dadkan dad xun baa wada dadkii magaranaysa la socodna shacabku
كما سلاس أو سيدر ما هذا عرق من نبض لقوه نورد ما فيان طيب ما دام علن كلو gaar sitaan dadkaas inay carigaban nabad noqon isma kala tahay soo noqdaan dadkaas يعطي أنا كاي سمع لا تفيز كلام سلام وعندنا لقى بري ما يسمع كوا لافوفة يا وحي carigaabo dadka calanka Soomaaliland taageersanay weyn laga saaro laakiin imika markii hore waxa galad dagaalka imika waxa loo leeyahay galawinta ayaan leenahay waxaan leeyahay guriyooda hadaba ay qaxayna wadankii guriyoodii cid ka tageen guriyooda waa la gelaya oo lagu bakhlaysanayaa maxaa waa laga jaasaya guriyooda in laga jaaso weeye baarnay noqonaya iska yaariyaan waxaan leenahay galad dagaalka hal lagu sii wadana waxaas waa qalad dad nina meel leeyahay laga safayn karo waxaas waa qalad weeye dad isku laga sifeeyay maxaa aragnayd maxaa xalay guriyoodii antidoodii sax laga yeeli karaa dad masaakiin oo cararay weeye marka waa iska soo noqonayaan aakhir wala soo celinaya dadka in mar la cirka ku soo noqon karaan waa nin walba gurigiisa laga kaxayn karo waa sida weeye ayaa dad maasanta inay sida yuhuudda loo garaacaan doonayaa horta ciyaalka marka la basriyuun bay basar bartaan koodhe marka basarka in la baro inay ku soo xadgudbin xadadka Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay ciidanka fasaxa annagu ninkii ku qabto adeer si aayira wada baxda ciidanka madaniga ku biir si toos ah ciidanka madaniga u biir ninkii maadaama ay meesha deegaan ahaan ka soo jeedeen iyaga laftigoodu oo isaaq ay kala sinaayeen maxaa guryahoodii laga yeeli karaa korta hantidoodii ciidankii meesha ku dagaalamin baa ku guursan karaa degi karaa intii kalena waxaan leeyahay ordada meelaha aada guryahooda ciidanka meesha ku dagaalamay qaaday unbaa iminkana degi karaya adeero rag baa ku dhintay kan والله هرت waa shay qaali aad bad maasantay horta waa su'aal muhiim ah waxa weeye aragtidani oo ninba sidoo magaran hadaba waxa ku jawaabaya ninba aragtiisa meel ku dhufanaya moogtii horta wallahi billahi waxa weeye reerka daarood leeyahay waxa ku suxun bay dhaqmeen oo barigi dhaweede waxa weeye hadaba xukuma dawladda uga soo baxday magaranaysa gobolka Laascaanood leeyahay waxaan ku leeyahay xukmayo hab diblomaasiyadeed bay uga soo baxday ayay niyo deemoodeen magaranaysa in magaranaysa Soomaaliland ay jabiyeen moogtii Soomaaliland lama dagaalamin runtii waxna kama arag Soomaal garan in yaro ciidan oo Faysal watay iyo nimana lamida waxaan ku leeyahay xukmayo meesha isku raadkeeyo tan nimankii bay waxaan ku meesha lagu soo gaadhay waxa weeye waxaan leeyahay Soomaaliland xays kama idaan arag waxa weeye arrinkan iyo lagu dhaaqay dawladda iyo waxaan ku leeyahay xukmayo waxaan filayaa dawladda inay ku jirin be inuu siyaasadda kuloo kala manaa laakiin waxa filayaa dawladda inay ku jirin dawladdu wali gacanta lama soo galin siyaasad qabow ku wada waqti nabad ku baaqday arrinkan waa soo dhawanaya si wanaagsan u marka mar hadii deegaamadoodii loo soo dhaafay oo dawladdu ay ka soo baxday oo waxayna daba wada khalada Soomaal garan waxaan leeyahay tabtaaway marka waxa weeye shuqul iyo shaqo toon ciriga waa kuma mana sheegtaan inaga waxa weeye xadkeenu waxa weeye halka Ingiriisku waxaan ku dhinaasiyo weeye caalam kasta wadan kasta dadku waxay isweydiinayaan hantida laga ka tageen dadka haybta daarad sheegtaa bal hantida isaaq maxay ka yeeli doonaan والله دنيو waxaan ku raday xukuma marba waxay taala waxay gacanta ku hayo waxaan la kulay wixii dawladdu gacanta lagu soo wareejiyo maadaama waxaan ku ri adoo xukuma hawsha marka hore waxaan ku ri ay soo gaadhay dawladda moogtay inagu waxaan wadan moogtay hadaba xukuma madaxbanaanidina waxaan ku ri wadan madaxbanaanida imka ay gacanta lagu hayeen moogtay waa tiimka hawshan Mareykanka ka socoto siyaasadda Mareykanka waa tiimka ahayd baa in isbuucan soo socda lagu dhawaaqo moogtay marka inagu wadan tiro caalamka waxaan ku leeyahay xukmayo baynu ka tirsanay maleeshiyaadkan waxaan ku leeyahay xoggan goosadka gobolkan la wareegaysanayana runtii waxaan ku leeyahay hantii laga qaadan xunaan lahaa dawladdu gacanta loo soo galiyay inagu dawlad ban leenay marka saasaan uga jawaabay